السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada akhyaarta meel walba aad joogtaan. Waxaan idinla wadaagayaa 10 qodob oo runtii muhiim ah marka aad rabto in aad Alibaba alaab ka iibsato. Waxaa qof walbo og yahay in ay jiraan warshado scammers ah oo ku jira shirkadda Alibaba oo ay Alibaba mar walba la dagaalanto kana saarto meesha. Haddaba si aadan ugu dhicin waxay ku dejisay system haddii aad barato aad raacdo aad toos ula macaamili karto warshadaha saxda ah keliya lacagtaadana ay kugu bedelayaan alaabta marka adiga aad doonayso. Haddaba 10kan qodob waa muhiim laakiin waxaa jira qodobo kale ayaa jira. Waxaan ku bilaabayaa marka hore intaanan horta bilaabin waxaan toos u tegaynaa website-ka alibaba.com. qodobada aan ka hadlayna waxaan idinka tusayaa website-ka gudihiisa. Marka ila soco haddii Ilaahay yiraahdo waxa kale aan ka codsanayo waxa weeye haddii ay jiraan su'aalo ku saabsan aan qabto Alibaba isoo qor hoos igu reeb commentiga. Waxaa jira video kan ku xigi doona oo aan isagana uga hadli doono erayada OEM-ka, ODM-ka, FOB-ga, erayada manufacturing ka isticmaalaan iyo waxa micnaha ay u taagan yihiin. Ayadana fahamta muhiim weeyaan. Laakiin 10kan qodob ayaa marka hore focus gareynaa. Waxaa weeye marka hore waxaan tegaynaa website-ka alibaba.com. Okay, waa tahay halkan waa meeshii website-ka weeyaan. Good. Qodobka ugu horeeya waxaan oranayaa know your niche. Waxa aad iibinayso, alaabta aad iibinayso marka hore waa inaad garanayso. Haddaad iska raadiso alaab aadan garanaynin waa ku jahwareeraysaa. Alaabta aad raadinayso magaca saxda ee alaabta loo yaqaano af Ingiriishka ah waa in aad waqti ku bixisaa, raadisaa, dad weydiisaa, Google ka raadisaa. Sidaas ayuu magaca kugu soo qabanaya. Magaca product-ga aad raadinayso haddii aadan garanin oo halka aadan ku qorin waxaa weeye way adkaanaysaa inaad ka soo dhex saarto alaabo badan ayaa arkaysaa. Waxaa kaloo isticmaali kartaa sawirka product-ga waa isticmaali kartaa. Meesha ay ku qoran tahay search by image. Haddii aad hayso sawirka product-ga computer-kaaga ayaad saas u kala garaynaysaa meeshaas. Markaad halkaa kala garayso upload the image kulli hadduu computer kugu jiro sawirkii upload garaynaysaa ama haddii aad mobile-kaada Alibaba ka gashay sawirkii ayaad halkaa gelinaysaa meesha search box-ka sawirka ku yaal intaa taabato. Isla alaabta u eg alaabtaas ayuu maaragtay uu ku garanayaa Alibaba. Marka know your niche. Niche-ka aad ku jirto waa inaad garanaysaa. Laba dhinac waan u fasiran karnaa. Kow waxay noqon kartaa horta alaabta aad gadayso inay suuq leedahay niche-kaas inuu fiican yahay iska soo hubiso. Marka labaadna in aad alaabtaas aad garanayso halka marka laga raadinayo. Qodobka labaad waxaa weeyaan number 2 waa use business email. Dad badan waxaa jira Gmail, Yahoo, Hotmail isticmaala. Inta badan manufacturing-ka serious kuma qaadanayaan haddii aadan communication-kiina uusan business email ahayn. Business email-ka iyo personal email-kana farqi ayaa u dhaxeeyo. I hope inaad garanayso haddii kalena Google search ayaa ku samayn kartaa. Markaad company leedahay ama domain leedahay ayaad business email furan kartaa. Marka waa muhiim inaad mataqaanaa kaas aad ku communicate garayso. Qodobka saddexaad waxaa weeye number 3 read the reviews. Akhri review-ga tusaalaan ku siinayaa. Hadda haddii aan halkan tago waxaan ka soo qaad qaybta carruurta oo kale aan tagay productyo badan ay soo baxay. Waxaan ku dhuftay qolyahan 300 piece offer garanayaan ayaan ku dhuftay. Tan waxaan u baahanahay in aan ogaado dadkii hore ee wax ka iibsaday waxa ay ka dhaheen dadkan review-ga ay ka reebeen inaan ogaado waa muhiim. Marka taas ayaa keenayso in aad mar walba review-ga akhriso inay muhiim tahay. Halkan waxaan uga jeedaa inay response rate-koodu fiican yihiin, time delivery-goodu inuu fiican 92% u yahay. Hadda halka kala garayo website-kooda ay geenayaan. Laakiin inta aan taag gaarin waxaan rabaa inaan eego inay jiraan dad u reebay wax review ah. Waa tahay marka halkan joogto si aad u aragto rating-kooda iyo review-gooda always waxaa tagtaa meesha ay ku qoran tahay response rate. Response rate-kaas ku dhufanaysaa. Marka response rate-ka ku dhufato hoos u soco. Then halkan horta response rate-ka waxaa weeye inta siday kugu soo jawaabayaan dhaqsidiisii waxaasi weeyaan. Halkan ay ku qoran tahay rating iyo review ayaa ku dhufanaysaa. Rating iyo review-gaas marka ku dhufato hadda waxaa ku jirtaa specifically manufacturing-kan supplier-kana ku jirtaa. Marka supplier services-kiisa 5 star u haystaa, on time shipment-kiisa, product quality-giisa waxyaalahan muhiim weeyaan. warshadaha scam-ka ah kuwan oo dhan malaha mana heli karaan. Marka
inaad iska fiiriso 100% 5 star haystaa 4 star 4.5 waxyaalahaas dhan waa iska okay weeyaan. Okay, marka hoostan waxaa ku qoran dad ka iibsaday. Hadda qofkan oo kale wuxuu joogaa United Kingdom uu joogaa, wuxuu siiyey 5 star uu siiyey, excellent services uu yidhi. Qofkan wuxuu joogaa Malaysia, qofka kale UK, qofkan wuxuu joogaa Peru. Pageka labaad aad sii aadi kartaa, any product ayaa saa u fiirin kartaa. haddii aan productkan kale aan tago, tusaale CCTV-go kale aan tegey, waxaan fiiriyey in mataqaana ratingkooda iyo reviewgooda aan fiiriyey. Sidaas oo kale halkan ayaan ku dhufanayaa. waa tahay marka kuwa CCTV-gooda waa ujeedaa. meesha 5 star kan 4.9 haystaa, 4.7 haystaa. marka waxyaalahaas muhiim weeyaan. reviewga dadka maaragtay ka bixinayo ee maaragtay siinayo qodobkaas waa qodob muhiima, iska ilaaliya. qodobka saddexaad. qodobka afraad waxaan kusoo qaadanaynaa MOQ ayaan kusoo qaadanaynaa. MOQ-ga maxaa weeyaan? hadda halkan markaan joogo waxaa weeye inaad isku daaliso lama rabo. manufacturingkan inaad ka dhaadhiciso 100 xabo ma kaa iibsan karaa, 50 xabo ma kaa iibsan karaa, inaad ka dhaadhiciso uma baahnid. waxaa u baahanta keliya inaad fiiriso MOQ-gooda. halkan maxaa ku qoran 300 ugu yar. marka qofkan already 300 ugu yar halkan kusoo qortay, inaad ka dhaadhiciso 100 xabo way kugu adag tahay, ama price kugu daraya ama wax kale. minimum order MOQ waxay u taagan tahay minimum order quantity. marka MOQ-ga markaa fiiriso waxaad ku garanaysaa inuu supplierkan leeyahay flexibility ah inuu hoos kaaga dhigi karo iyo in kale. waa tahay aan fiiriyo marka kuwo kale oo runtii offer garayn karaan MOQ raqiis ah ama MOQ numberkooda yar yahay offer garayn karaan. MOQ-ga waa qodobka afraadaan weli ku jirnaa. waa tahay any product aan juice garanayaa ama alaab noocay doontaan aan dooranayaa. raalli ahaada. okay, waxaan doortay ka soo qaad farantiyadan oo kale aan doortay. farantigan oo kale aan rabaa. farantiyan doortay, wax kale ii soo baxay. okay, no worries. waxaan dooranayaa necklace-kan ama qorgashigan. waa tahay MOQ-giisa meeqa weeyaan? 10 piece ugu yar halkan. haddii aan kusii dhufto waxaa ugu yar 10 xabo. marka halkaas waxaa ka garan kartaa supplier walba aad la hadlayso inta xabe uu gol yahay. marka wuxuu kaa siinayaa 10 xabo ilaa iyo 49 xabo intuu dhexeyso haddaad dalbato $5 iyo xoogaa. magaca doontana ay kugu qorayaan halkaas. waa necklace-kaas. waa tahay 550 xabo ilaa 99 xaban haddii aad rabto qiimaha kaasi dhimayaan. marka MOQ-gu waa muhiim. marka taa waxay ku badbaadinaysaa waqtiga ah supplierkan in aad waqti badan ku bixiso inuu number yar ka aqbali karo iyo inuusan ka aqbali karin. okay, qodobka shanaad waxaan kusoo qaadanaynaa priceka iyo supplierka inaad comparison ku samayso, inaad isku barbar dhigto oo mataqaanaa aad fiiriso. hadda tusaale oo kale halkaa markaad joogto wuxuu leeyahay each supplier. tusaale yar idinka siinayaa. waxaan usoo qaadanayaa 5 supplier oo kale tusaale usoo qaadanayaa. okay, waxaan 5 supplier waa badan tahay. adiga hadhow qofkii raba asagaa isku sii badsan kara numberka si aan waqtiga inoogu badbaadiyo oo maaragtay uusan video u dheeraan. waxaan tusaale usoo qaadanayaa yar. dhowr shay ayaan compare sameynayaa si supplierkii alaabta iibinayay iyo aniga aan kasoo qaad. perfume ayaan rabaa inaan mataqaanaa iibiyo. perfume aan rabaa inaan iibiyo. kasoo qaad kan wuxuu leeyahay 5,000 piece ugu yar. kanna wuxuu leeyahay waxa ugu yar 100 piece. waxaan rabaa kasoo qaad wax ka yar less than 100 pieces aan rabaa. halkaasaan ku qoray. already waxaa iga baxayo kuwa 5,000 iyo waxaas iga baxay si aan price compare u sameeyo. okay, meesha ay ku qoran tahay ereyga compare ay ku qoran tahay haddii aad taabato hoostaas waxaa gelayo ereyga compare. halkaasna compare kala gashay. hadda labadaas supplier ayaan isu fiirin karaa, laakiin aan 3 ka dhigo. 3 supplier ilaa 20 supplier lagu ogolay markii aan isku compare garayso. tusaale 3 supplier aan isku fiirinayaa maxay kala duwan yihiin. okay, kan minimum order quantity-giisa 20 xabo aan jeedaa. kan waa 5, kanna waa 5,000. okay, inuu manufacturer yahay aan jeedaa. qiimahooda ayaan isku barbardhigi karaa. waxyaalo badan ayaan ka eegi karaa. goal supplier-kooda ayaan fiirin karaa.
oo soo socda qodobada soo socda ay ka mid tahay price-kooda u jeedaa mid waa $5 mid waa $55 midna waa mataqaanaa 37 cents markaan qaadanay 5,000 xabo marka qodobka shanaad inaad isu barbardhigto supplieradii dhowr warshadood inaad isu barbardhigto qiimaha iyo si ay u kala duwan yihiin iyo quality-gooda iyo waxyaalo badan ayuu page-kan kuu saamaxaya markaa compare ka taabato qodobka waxaan oranayaa qodobka lixaad waxaan kusoo qaadanayaa communication-ka markii aad manufacturing-ka la hadlayso ama supplierka la hadlayso in aad communication-kaaga kula hadasho through Alibaba only qaarkood waxay ku dhahayaan WhatsApp-kaadana sii Skype-kaadana sii waxaasoo dhan way fiican tahay salaanta iyo howl fududeynta iyo waxyaalahaas u isticmaal laakiin markaa orderka ka hadlayso quality-ga markaa ka hadlayso waxay isku ogaanaysaan manufacturing-kan waxaa u baahan tahay in aad communication-kaas Alibaba gudihiisa u ahaado hadhow haddii wax dhacaan markaa dispute samayso si Alibaba trade assurance-gooda ay u imaadaan qoraalladii asqaabsateen u akhriyaan marka ay ogaadaan in lagaa gardaran yahay oo maaragtay lacagtaas kugu soo celiyaan haddii aad meelo kale communication-ka platform kale ku qaadato Alibaba ay ku dhahaan maya ma aqbalno sidaas adiga ku lose garaysay case-ka qodobka toddobaad waxaan kusoo qaadanayaa ask the supplier quality-ga materialka alaabta laga sameeyey mar walbo Alibaba gudaheeda ku weydii iyadoo qoraal ah alaabta maxaa laga sameeyey quality-geeda iga waran how is the quality of your product what material did you use haddii ay mataqaanaa ingredients ay tahay haddii material tahay you have to ask waa inay jawaabtaas kugu qoraan Alibaba gudaheeda si hadhow haddii iswaafaqi weyso wixii aad dalbatay iyo wixii kale ee cilad oga imaato adiga mar walbo ay xaggaaga u jirto banooniga lacagtaa soo hartay Alibaba payment-iga isticmaal supplierka inta iska baranaysaan oo iskala shaqaynaysaan muddo ha ugu dirin bank transfer ha ugu dirin Western Union ha ugu dirin si kale waxa ugu dirtaa Alibaba payment haddii aad supplierka muddo isla shaqaynayseen oo asbarateen oo aaminsan tahay wax dhibaato inay kaaga imaanin meesha rabta lacagta ku sii adeeg mataqaanaa kugu xiran tahay laakiin bilowga hore systemka Alibaba raac adigay safe ku tahay lacagta aad ku bixiso Alibaba kaarka Visa iyo Mastercard international-ka aad qaadato waad ku bixin kartaa waa tahay salaada duhura soo dhow insha Allah waan ka gaarsiinayaa use Alibaba payment waa kaas weeye midda kale qodob kale asagana muhiimka ah waxaa weeyaan aan dib u laabto waxaa weeye waa gold supplier inuu manufacturing-ka yahay hadda meeshaan aa ujeedaan waxaa ku qoran calaamadaas waxaa la yidhahdaa gold supplier 3 years uu gold supplier yahay halkan trade assurance way qodobka noogu xigo noqon doonaa marka haddii aad taabato trade assurance waxaa ku xigo supplier online performance verified suppliers iyo gold supplier 2 years of operation inuu yahay marka gold supplier-ka waxay ka mid tahay manufacturing-ka waxyaalaha lagu doorto ay ka mid tahay inuu gold supplier yahay oo uu maaragtay ka diiwaan gashan yahay Alibaba uuna ka mid yahay kuwa Alibaba ay aaminsan yihiin oo la shaqeeyo waatana ereyga calaamada gold supplier-ka waa kana ereyga waxaa la arkaa ereyga gold supplier ha raadinin just sticker-kaas ay u egtahay fiiri markaa eegto waa gold supplier weeyaan ama way ku qoran tahay ama sticker-kaas keliya la socoto marka gold supplier-ka isagana waa muhiim waa qodobka 9aad trade assurance-ga soo haray trade assurance-ga sidiisa muxuu yahay horta gold supplier-ka waa Alibaba manufacturing-ka ay leeyihiin wax ka iibso ay aaminsan yihiin oo iyaga og yihiin in warshad sax tahay ama trade sax tahay weeyaan laakiin trade assurance-ga waxaa laga yaabaa manufacturing-da qaar iyagoo gold supplier ah inay haysan trade assurance-ga waa garantiga haddii aad supplier-kan wax ka iibsato alaabtii ay quality-geeda xumaato ama ay si kale wax u dhacaan ama khalad kale u dhaco in ay Alibaba lacagtaada kuu soo celinayso hadduu supplier-ka trade assurance u lahaa marka insha Allah faahfaahintan oo dheer website-keena abadiracademy.com gal koorso dhammaystiran oo Alibaba ah ayaa ku jirto bishii waa $10 waana iska diiwaan gelin kartaa hal bil qaadan kartaa ka badan qaadan kartaa aday kugu xiran tahay videogan waxaan kusoo gabagabeynaynaa verified supplier isagana waa kii hadda aan tusayay oo isla kanoo kale calaamada verified ka wato calaamada verified ay ku qoran tahay wato isagana waa verified by location xaruntiisa xataa way soo arkeen Alibaba way la socdaan way garanayaan wax dhibaato ma laha videoga xiga kan wuxuu noqon doonaa insha Allah inaan ka hadalno ereyada sida OEM-ka ODM-ka FOP-ga ereyadaas oo dhan oo listigoodan soo qorayna waxyaalaha yihiin waxa kale adigana waxaan ka rajeynayaa insha Allah haddii aad su'aal qabto inaad hoos ku soo qorto jawaabteedana aan ku soo daro
barnaamijka soo socdo ee kankiisa insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullahi